daawaneysaan oo Somali Media oo ku sugan magaalada Boosaaso dabadasi waxaan u yeeshay Cabdiwale Sheekh Xasan ah maamulaha guud ee telefishinka ETN iyadoo telefishinka uu yahay telefishinka ugu fiican ee ka baxa magaalada Boosaaso daba nasiib waxaan u yeeshay maamulaha Cabdiwale Sheekh Xasan inaan weydiiyo marka hore in uu noo sheego ETN taariikhdeeda oo kooban wuxuuna ku jawaabay بسم الله الرحمن الرحيم آدي أياد ما سنتهاي زكريا ونوجي يمد قبل كاسي مينيسوتا وكسعد السومالي ميديا مركو هو رئيس وحن شعلينا كوسو دويو حارونت التلفزيون كإيتيان أي مقالة بوساسو أنا كفاية السنة فرصة دان قالقة يعني سيسي هدي أن أنقل سؤال شادي هيد تاريخ كوبن أو تلفزيون كإيتيان ETN وحوية تلفزيون كي أجوري لقى أساسه مقالة بوساسو أما قبل هذا بنتلان تلفزيون كوحنا أساسنا لابد يكون يشنتي هذا السنة كيس دحال أيام نص عدا أو بيشان أغسطس دي لاي رئيس سعته وحن نقولنا ناس دحجر وحنا كوب اللوني باهذي ودن كأنه وبهنا خاصة قبل هذا أو وبهنا باهي شبكة ورباهينات أو لسكاركو سلا سعتام سومالي أنتي مداهد وبر ورباهيد من اللهين تلفزيون كأما ورباهين تلسكاركو مركزي أنا باهد أسبوع حنو وأنا ضد كنا وها قبترنو إن أي كود عودان وحي أي دنين ينوع أخباراتك برنامج جدا يوحيالها كلا نلش شودا سامية سيدا يوجو أركان يضو مقال يوم مقالة ayaa waxaa noo suurto gashay inaanu kadib markaan ku sameynay daraasad badan inaanu ka yagleelno ama ka dhisno shabakad warbaahineed oo la iska arko marka 2005 ayaan halkan ka bilownay telefishinka ETN magaalada Boosaaso alxamdulillah rabbil caalamiin wadankan saad la socotaba waa wadan cusub khaasatan magaalada Boosaaso waxaa la yimid intii burbur ka dambeysay mana jirin xarumo farsamo oo laga barto xirfadahan ku saabsan teknolojiyada oo aad u sareysa khaasatan dhinaca media haday noqoto kamarada iyo habka filmada la isugu dabarido ama loo hagaajiyo oo loo yaqaan editingka iyo in general media warbaahinta ama haato reporting ama journalism ama in general management of the media ma aysan jirin meel institutions oo xirfadaas laga barto nasiib wanaag dadkeena sala socto waa dad very resourceful ah ama inta yar ay haystaan ayay aad uga faa'iideystaan waa dad u baahan oo kaliya in la hormariyo oo schooling iyo development loo sameeyo laakiin waxa joogta dhalinyaro unbelievably capable ah oo aad u baratay xagga computerada iyo internetka marka dhalinyaradaas ayaan soo xulanay kadibna training ayaan siinay oo waxa ii suurta gashay inaan dhalinyaradii train gareeyo one by one and amazingly iyaga istababaray aniga hadda iga xirfad badan yihiin oo iyaga wax ka bartaa marka waxaana ka shaqeystay qiyaastii ilaa 40 qof oo isugu jira wariyaal farsamo yaqaano maamul xisaabaad soo dhaweyn iyo waxyaalo kala duwan waa company weyn 45 qof ayaa ka shaqeysa dad badan ayaa ku tiirsan 45 kaas qof waxa laga yaabaa intaasi in ka badan oo kale inay ku si indirect inay ugu sii nool yihiin marka waxa la oran karaa waxay ku jirtaa shirkadda telefishinka ETN oo 3 jirsatay kaliya 3 jir ah waxay ku jirtaa meelaha ugu badan oo ay dadku ka shaqeeyaan magaalada Boosaaso waa mahadsantahay aniga background-kayga haddaan wax yar kaaga sheekeeyo runtii waa markii ugu horeysay oo television aan macnaha manage gareeyo ama aan rangareeyo inkastoo schooling background-kaygu ahaa mass communications iyo corporate communications oo aan ka soo qaatay University of Baltimore Maryland meeshaas ayaan background-kayga hore iskuulkayga oo ahaa laakiin weligay ma rangareynin institution dhan oo television ah saa la socotana waxay qaadanaysaa dad badan oo xirfado kala duwan leh waxaasoo xirfadoodna anigu marna ma aan lahayn waxaasoo xirfadooda marka nasiib wanaag waxaan helay dad aad dhalinyaro u ah oo very resourceful oo capable ah oo jecel in maaragtay inay caalamka la jaan qaadaan runtiina as oranayso mar dambe waxay ku nool yihiin in a western world developed world siday u isticmaalaan computing iyo technology si ay ula socdaan marka way ii suurta gashay inaan coach gareeyo xoogaa intaan aqaanay aan uga faa'iideeyo wax badan iyagan ka faa'iideysto waxay ka barteen internetka information age iyo CDL iyo waxyaalo noocaas oo kale
wallahi horta dhibaatooyinka waxaa loo kala saari karaa laba qaybood mid waa mid oo in general aan dadka iyo dalkaba la qabno oo dhinaca burburka iyo siyaasadda iyo deganaanshaha ah taas wax weyn oo dhibaato naga soo gaarta ma ay jirto laakiin waxa dhibaatada ugu weyn oo haysta waxay tahay dhanka farsamada ama technical knowledge-ka aan leenahay ayaa industry-gan aan ku jirno wuxuu u baahan yahay mar walbaba in la develop gareeyo oo la hormariyo oo la improve gareeyo constant training mar walba waxaa u baahan tahay inaad waxyaalaha cusub la jaan qaado wixii aad samayn jirta si ka duwan inaad u samayso marka annaga dhibaatada noogu weyn oo na haysato waxay tahay aqoon la-aan iyo training la-aan marka waxaan aad iyo aad u jeclaan lahaa community-geena dibadda jooga ee accesska iyo janiska iyo fursadaha u haysta aqoon iyo xirfado kala duwan in ay bal haddii ay karaankooda keli karaan nagu soo xidhaan institutions like universities ama community colleges ama meelo production houses media facilities oo aan ku hoos korno oo aan wax ka faa'iidaysano oo aan exchange la yeelano oo na tarengareeya ama halka noogu yimaada si volunteer leh xataa dadka imanaya oo xirfadaas leh oo u dhashay goboladeenan inay maaragtay dhankaas naga caawiyaan sidii ay nooga horumarin lahaayeen xagga technicalka ama farsamada aqooneed ee xirfadayada ku saabsan anigu mar ahaan cabdiwali ahaan waxaan usoo jeedin lahaa dadweynaheena ku nool goboladaas ah ka timid Minnesota marka hore waa salaamaynaa marka xiga waxaan u sheegaynaa waddankii inuu nabad iyo ammaan yahay waxyaalaha ay meediyaha ka maqlayaan waa wax extra oo la buunbuuniyey waa very isolated incidents weeye waxyaalo badan oo adduunka la qabno way jiraan sida xagga sicir bararka iyo dhaqaalaha saameeyey nolosha guud iyo waddankii oo meelo badan laga shaqeeyo lahayn dhankaas way jiraan culays ka jira xagga nolosha laakiin ammaanku waxyaalo incidents oo dhaca oo haphazard ah mooye in general waa peace alxamdulillahi rabbil caalamiin marka waxaan idin sheegayaa ama idinku boorinayaa inaad waddanka imaataan intii aydan maaragtaa fikrad ka go-aan ka gaarin oo aydan oran waddankii waasaan iyo waddankii waa saas intaadan odhanin inaad indhaha kusoo aragtaan lianno mediaha hadda ama telefishinka ka shaqeyno waxay gaaladu tiraahdaa ama idinku westernka u yidhaahdaa one picture equals 1,000 words soomaaliya iiga waran iyo boosaas iiga waran dadka markuu yidhahdaan waxaa ka habboon waatan ishaa macallin kaga bogo boosaaso is moving is growing is developing whether you believe it or not laakiin it needs you help dhaqaalihiina u baahannahay aqoontiina u baahannahay supportkiina u baahannahay telefishinkeena annaga waxaan joognaa meel in the middle of nowhere kuma xirnin caalam marka dadka waxaan usoo jeedinayaa xirfadda leh oo idaawanaya ama imaqlaya ku nool meelahaas oo si uu noo caawin karaa in ay noo caawiyaan hadday noqoto dhanka farsamada dhanka advice-ka dad volunteer inay halkan yimaadaan samarka haddii uu janis helo qofku yimaado halkan inuu nagu caawiyo haddii ay jiraan macnaha journalist iyo dad computer graphicska cameraman adoo kala barnaamijyada inaga duubaan oo isku xidhaan ummadeennii dibadda jirta jaaliyadeennii iyo tii gudaha soo aan looga sheekeyn ay ka daawan karaan this is boosaaso this is gaalkacyo this is laascaanood this is baran ka daawo magaalada ma idiin soo gudbinaa barnaamijyadaas midda kale oo rabo inaan fursaddan qaali kaga faa'iidaysto ayaa waxay tahay waxaan jecelnahay sababaha loo aasaasay ETN waxay ahayd marka koowaad in horta waddankii ay ku yeelato a presence strong presence ama meelo productionka lagu sameeyo oo wax kusoo saarno sida halkan oo kale marka ugu horeysa waddankiina aan la falgalno oo aan dadkii la shaqayno oo aan daily maaragtay u noqono maxaa la dhahaa the sourcigooda of information waa locally taas ayay ujeedada koowaad taas ay ahayd faceka koowaad faceka labaadna waxay ahayd in aan serve gareyno ama aan u adeegno communitygeenii dibadda ku noolaa Europe iyo North America oo aan wixii waddanka ka socday tusno marka facekaas waa ku guda jirnaa haddii ilaahay yiraahdo mar dhow waxaan soo galaynaa satellite-ka oo laga arki doono Africa oo dhan iyo Middle East marka labaad waxaan jecelnahay North America iyo Europe in laga daawado haddaba haddii ay jiraan dad xiiseynaya ummadeena ama xag farsamo ha ahaato ama xag dhaqaale ha ahaato ama fikrad kala guud ha ahaato oo nagu beerin kara ama wax uun caawimaad naga geysan kara arrintaas sidii loo horumarin lahaa TV-geena ku yaal magaalada Boosaaso oo ah kii ugu horreeyay ee gobolada Puntland uguna